beesha cormale oo ka mid ah beelaha dega ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta kulan soo dhaweynayo mahadcelin markaa ku qabatay gudaha magaalada Kismaayo kadib markii beesha ay xubno golo wasiira oo dhawaan u soo dhisay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ay kula hayeen waxaana xilligan beesha ay soo dhaweyn u sameeyeen wasiirada kala ah Maxamed Yuusuf Umar Abu Yuusuf iyo sidoo kale Faadumo Macallin Cabdikariin Cali oo iyaduna markaasi ah xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland xilligan ka mid noqotay golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland dhalinyaro u badan beesha cormale ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kulankan soo qaban qaabiyay waxa ayna markaa mahadcelin u jeediyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Sheekh Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo xilligan u gartay shakhsiyaadka loo magacaabay in ay markaa ka soo hormuuqdaan golaha wasiirada ee cusub iyaga oo ku amaanay dadaalka iyo kartidooda ay xilligan markaasi ku bixinayaan dib u dhiska deegaanada ay beesha ka soo jeedo iyo sidoo kale arrimaha dib u heshiisiinta waxa ayna sheegeen in xilligan loo baahan yahay in laga wada qayb qaato dhismaha dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan dhinaca arrimaha dib u heshiisiinta oo u baahan in xoog la saaro ayay markaa dhalinyaradan ku amaaneen xubnaha uu madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe u magacaabay in ay markaa ka mid noqdaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland oo dabayaaqadii toddobaadkii hore uu magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Sheekh Maxamed Islaam Axmed Madoobe kuwaasi oo si weyn looga dhursugayay dhalinyaradan oo qaarkood markaa warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeyntii soo dhaweeyay xubnaha uu magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam sidoo kale waxa ay markaa dardaaran u jeediyeen xubnaha la magacaabay iyaga oo ku bogaadiyay in ay ka qayb qaataan horumarinta beesha ayna mar walba markaasi soo dhaweeyaan dhinacyada iyo dhalinyarada mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka Jubbaland gaar ahaan beesha cormale waxaan isku nimid waa bogaadin iyo taageero loo muujinayo garab istaag dowlad goboleedka Jubbaland ee hogaamiye uu ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam saawad ogsoonahay beeshan cormale waa beel aad muhiim miisaan ku leh deegaankan dhismaha maamulkan ayadoo wada ognahay caqabado fara badan ee uu soo maray gobolkan heer waxaan xasuusanaa taa howlahan iyo caanahan aan ku taageernay shirkii lagu dhisay Jubbaland oo ku maasan yahay madaxweynaha isna adeegii uu soo adeegay iyo heerka maanta soo gartay Jubbaland waxaan u gudbayaa magacaabista waxaan taageersanahay si guud golaha wasiirada ee fulinta uu magacaabay madaxweynaha saawada ogsoonahay madaxweynaha wuxuu magacaabay wasiir ku-xigeenna dowladyaal khibrad leh oo si hufan dowladda ula shaqeyn kara gaar ahaan matalaad aan ku leenahay labada wasiir aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirka cadaaladda iyo diinta oo qaafta ee garsoorka Maxamed Sheekh Yuusuf Umar oo waa shakhsi aad u soo shaqeeyay Jubbaland oo wasaarado kala duwan soo maray waxaa sidoo kale u mahadcelinaynaa oo farxad gaar inoo ah Faadumo Macallin Cali oo nagu ahayd qof dhalinyaro ah active ah systemka Jubbaland shaqooyin badan ka soo qabatay ilaa heer degmo soo martay haddana xildhibaan ah oo insaanka iyo waxyaabo badan ka soo shaqeysay haddana uu gartay madaxweynaha inuu wasaaradda sportiga uu ku mahadsan yahay marka kullaba waxa way Soomaali lama wada qanci kara baahiyo way jiraan oo korsan madaxweynaha sida agaasimo guud oo kale inaan ka filnayno oo noo soo magacaabi doono wanaagsantiin bismillaah horta waxa aad u mahadsan dhalinyaradii aqoon-yahanada ahaa ee beesha cormale halkan iskugu timaaday kulankan maanta aad arkaysaan waa kulan iskugu yimaadeen in loo mahad celiyo dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha Sheekh Axmed Islaam Axmed Madoobe taasoo ah kulankan xaqiiqatan sanadkan waa sanad aad u qiimo badan in mudan in la bogaadiyo loona mahad celiyo sida wada ogtihiin golaha wasiirada sanadkan la dhisay waa dhalinyaro aqoon-yahan ah oo qurbaha inta badan ka imaaday aan ku qiyaasi karno dowladdii ugu fiicneed oo la soo dhisay kan beel ahaan annagu cormale halgankii dheeraa u soo galnay cid waliba oo deegaan ku ah Jubbaland way taqaanaa Kenya ilaa iyo Kismaayo markaan imaanaynay waxaa la imaanay annagoo dhaawaceena iyo wadanay iyo meydkeena xaqiiqatan haddii aan la dafiraynin waxaan nahay qabiilka koowaad diina qowayna inaan nahay qabiilkii labaad waxaan aaminsanahay inaan nahay milkiilayaasha Jubbaland
xaqiiqatan sida uu qeybiyey golaha wasiirada aad baa u bogaadinaynaa waana soo dhawaynaynaa inkastoo bini'aadanka tabasho iyo cabasho ay iska jiraan weli waxay naga maqan xaquuqo badan waxaana ka codsanaynaa rajaynaynaa inaan helno sida ugu fiican ugu quruxdo badan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا إلهي بان أمهد علينا ثم حفلتنا سوء إيماني دتكي سوق بان قابيه بان أمهد علينا يا حاسلاي هاي دال دير بان لغو بحيي waxa la soo maray iyo waxa hadda maanta meeshan hadda maanta la taagan yahay miraha la guranayo dadaal baa lagu soo bixiyay oo Ilaahay baa ku mahadsan ثم waxaan leenahay dadkii ka soo shaqeeyay baan ugu mahad celinaynaa oo ugu horeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo wasiirka cadaaladda oo ku xigto wasiir ku xigeenta wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa wasaaradahan hadda cusub ee lagu dhawaaqay ama baan soo dhaweynaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa annaga mansabka hadda noo soo kordhay cidda dadaalkeeda geysatay baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay weli faanole fare kama qodno wax badan baa reerka ka maqan waxaan leenahay amba aan ka codsanaynaa madaxweynaha reerka meel fiican buu geeyay meel intaa ka sii fiican inuu geeyo baan ka codsanaynaa intii ka soo shaqaysana waan maaragtay ama kala shaqaysana waan ugu mahad celinaynaa ugu horeeyo wasiirka ku xigto wasiiradda hadda la magacaabay dadaalkii dheeraad oo labadoodaba la imaadeen aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay waxa maqan insha Allah taala hal raadiyo oo hallo maaragtay kaba gashto anu intaasaan ku darayaa waxaan leeyahay hambalyo aan soo dhaweyno aan soo wada dhaweey bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasantii dhamaantiin akhyaarta halkan iskugu imaatay dabcan kulankani waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waxaan uga hadlaynaa maanta waxay tahay wasiiradda cusub ee ku soo biirtay golaha wasiirada Jubbaland Faadumo Cali oo noqotay wasiir ku xigeenka dhalinyarada iyo isboortiska Jubbaland haddaan nahay gabdhaha Jubbaland qaasatan gabdhaha beesha Ormale aad baan uga faraxsanahay inay Faadumo ka soo muuqato golaha wasiirada sababtoo ah Faadumo waxaan ogsoonahay aan ku kalsoonahay aqoonteeda iyo kartida ay leedahay waan ogsoonahay in gabdhaha iyo dhammaan bulshadeynta Ormale in ay wax badan u qaban doonto dhanka kale haddii aan u jaleeco madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam waxaan leeyahay beesha Ormale kuma filna in aad loo wasiiro kaliya ka siisid golaha wasiirada waxay u baahan yihiin waxyaalo fara badan agaasimayaal u baahan yihiin waxa jira dad fara badan oo aqoon leh dadkaasi waxay aqoon u leeyihiin oo soo dadaalaan waxay tahay inay dadkooda wax u qabtaan marka haddii aysan dhalinyarada mar walba garab la siinin waxbarashadooda waxa u mataraysa dadkii ku soo tiiri tacabeelana dabcan iyo jab ayaa ku dhacaysa marka madaxweynaha waxaa ka codsanaynaa in dhammaan beesha Ormale gacan mid ugu qabto oo san gacan bidixina maasantiin dhalinyarada halkan iskugu imaatay waxaan halkan ugu mahad celinayaa madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe wasiirada uu noo soo magacaabay uu ku mahadsan yahay waxaan rajeynayaa insha Allah xilal badan oo naga maqan oo soo dhawr adeegnayna in uu nasiin doono xaquuqda Jubbaland ku leenahay kaliix ma ahan in aan hadda heysano laba wasiir xuquuq ka badan aan rajeynaynaa insha Allah waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa wasiiradeena Faadumo Maxamed Cali iyo wasiirkeena Aw Yuusuf waxaan leeyahay hambalyo shaqo wacan Ilaahay ha ka dhigo kuwii shaqadooda guto waan u mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo halkan iskugu keenay annagoo caafimaad qabno marka labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Sheekh Maxamed Axmed Islaam oo runtii Jubbaland ka keenay meel oo aan wada ognahay laga soo bilaabo xilligii Jubbaland la soo asaasay tan iyo Dubli juhdigii iyo dadaalkii wanaagsanaa oo ku soo bixiyay taasoo hiigsigeeda ahayd in annaga dhamaanteen halkan nabad ku wada noolaano oo quruxdan maanta aad arkaysaan Jubbaland guud ahaan gaar ahaan Kismaayo sida dadku u wada nooleen sida nabdoon juhdigii dadaal ku soo bixiyay aad baan ugu mahad celinayaa isaga iyo dhammaan madaxda ka soo qayb qaadatay marka labaad waxaan asaga in ugu mahad celin rabaa isla madaxweynaha sida wanaagsan golaha wasiirada u soo magacaabay dheelitiran dadka Soomaaliyeed ee ugu midaysan yihiin taasna ugu mahad celinaynaa gaar ahaan anaga markii hore wasiiran haysanay hadda wuxuu noogu daray mar labaad wasiir ku xigeen Faadumo Macalin Cabdikariin runtii waxaan leeyahay hambalyo waa gabar Soomaaliyeed oo walaashayna ah oo runtii aan dadaal badan iyo maxal dhihi jiray dhalinyaranimada waqti badan soo wada qaadanay marka hore Allah subhanahu wa ta'ala ayaa maad iska leh waxaan u mahad celinaynaa
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo u soo dhawr adeegay dhammaan caqabadihii iyo culeysyadii intuu dhisay maamulkanita wuxuu sidoo kale madaxweynaha ku amaanan yahay in uu ka dhigay Jubbaland mid loo wada dhan yahay haddana weli mid nabad ah waxaan sidoo kale si sharfan u soo dhaweynaynaa golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Jubbaland kuwaasoo ah kuwa tayo leh dhammaan ay u badan yihiin dhalinyaro maadaama anagu aan nahay dad dhalinyaro ah waxaan haddii aanu nahay dhalinyarada beesha Coormale waxaan si wanaagsan aan u soo dhaweynaynaa golaha sita welina taageero weyn ayaan u muujinaynaa waxaan sidoo kaleeta hambale gaar aan u diraynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta mudane maxamed yuusuf cumar iyo wasiir ku-xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha Maro Faadumo Macalin Cali wasiirka mudane maxamed yuusuf cumar oo ah shakhsi Jubbaland u soo halgamay kana mid ah dadka u dhaxaadka wasiirku wuxuu ku amaanan yahay asagoo aqoontiisa iyo khibradiisa kaashanaya ayaa wuxuu soo kiciyay wasaarado badan ugu horeyso wasaaradda maaliyadda markii Jubbaland la imaanayay waxay aad meel ewer ah wuxuu ka soo dhigay wasaarad dhisan oo shaqeynaysa oo system leh oo shaqaale leh waxa maanta sharaf weyn inoo ah inaan maanta aan ku wada kulano halkan anagoo ah dhalinyaro hal beel ka soo wada jeedo waxa kale oo rabaa inaan hambaliyeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam sida sharafta leh oo u soo dhisay golihiisa wasiirada kaasoo qabiil walba ama qabiilada Jubbaland degta ay ka wada muuqdeen taasoo na tusinaysa in Jubbaland la wada leeyahay ay dib u soo curatay waxaan kale oo rabaa inaan hambaliyeeyo wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland wasiir Maxamed Yuusuf Sheekh Cumar waxaan kale oo inaan hambaliyeeyo wasiiradana cusub Faadumo Macalin Cali waxa sharaf weyn inoo ah inaan mar kale aan dib ugu soo muuqano golaha wasiirada oo halkii wasiir aan haysanay oo loo dar wasiir kale waxaan kaloo madaxweynaha aan xasuusinaynaa ama waan sheegaynaa in aan nahay beelweyn degto Jubbaland ama saami qaybsi ugu badan hadaysan lahayn talawaad leh waliba ay nooga maqan yahay xuquuqooyin fara badan ha noqoto agaasimayaal ha noqoto dhan walba oo arrimo social community arrimahiisa ha noqoto waxaan rabnaa madaxweynaha inuu arrimaheena dhan ama xilalka aan mudan nahay uu mar kale dib inuu soo muujiyo waxaan leeyahay mudane madaxweynaha hambali